munaasabadan balaaran ee lagu caleema saaray maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland siyaasiyiin maamulka hore ee degmada Garbaare saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo xafladan oo ka dhacaysay hoolka shirarka ee degmada Garbaare ayaa waxaa soo camirayay ardayda iskuulada kuwaas oo ku labisnaa dareeska iskuulka ayagoo koox u soo galay hoolka ay xafladu ka dhacaysay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo Nuur Sheekh Maxamed Buraale waxaa sidoo kale goobta hadallo ka jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag xubnaha baarlamaanka ee dowladda Jubbaland iyo sidoo kale waxgarad oo mudnaan leh u soo jeedinaya ciidamada AMISOM oo u taagan dhiigooda oo u diyaarsan inay u huraan sidii dalkeenna looga heli lahaa nabad waarta la isuna dhex mari lahaa oo gobolkeennu u noqon lahaa gobol nabada caqabadkiina dib ugu soo noqdo waan hadli doonaa aad baan u hadli doonaa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo insha allahu barasaabka gobolka mudane Axmed Buule Maxamed Canjeex waxaanu soo celinaynaa oo aan samaynaynaa caasimadda gobolka Gedo ee degmada Garbaare inay ku soo noqoto xarunnimadeedii rasmiga ahayd oo ay noqoto rajaynayna insha Allah xarunta gobolka Gedo ee caasimadda Garbaare meela ay ku hoydaan hogaamiyaasha Soomaaliya iyo kuwa adduunka ay seexdaan waxaanu samaynaynaa dib u heshiisiin iyo isu keenid waxaanu dhisaynaa ururada bulshada haddii alla idmo insha Allah waxaan wax ka qaban doonaa wax badan oo ay u horeeyaan biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada intaba waxaan rajaynaynaa inaan wax ka qaban waxaa qodobka koowaad oo rabna inaan qabanno waxa weeye degmada aan ku sugannahay Garbaare in lagu qabaysto lana cabo biyo macaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan tirinaynaa de waxaan iska sheegaynaa ma aha waxaan wax ka qaban doonno way biyo macaan inaad ku qabaysataan aadna ku weysaysataan waa jecel haddii ilaahay yiraahdo wuxuu soo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ee maamulka gobolka Gedo oo u horeeyo gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Canjeex gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabduraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaal kooka ayuu ku magac yahay waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad amniga iyo siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka labaad waa Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi waa taqaana waa ninka xaflada badnaa wuxuu fariisintiisa day tahay degmada Baardheer waa gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo arrimaha dhaqaalaha afar Xasan Sheekh Cilmi waa xogayaha mashaariicda iyo horumarinta iyo xiriirka hay'adaha gobolka waa taqaanaan Xasan Garbaare shan Isaaq Horow Xasan waa taqaanaa waa halgamaaga weynaa ee gobolka waa madaxa xogayaha arrimaha bulshada gobolka anigoo ah Nuur Sayaxareed afayeenka maamulka gobolka Nuur Daahir Maxamed Nuur Koofi ninka la yiraahdo waa taqaanaan xogayaha dhaqan celinta maleesiyaadka iyo tababarada sidaa darteed waxaan faraynaa maamuladaas inay waajibaadkooda u gutaan sida loogu talagalay mahadsanidin madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Janaraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaa la dhihi jiray ishii bugtay ku bogacsan bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي معنا دولة جبلان قدوميها وركوين كجبلان برسابك دولة الجزائر مامورك جبلان يوجد جيسة هير دول قدوميها دقمة كرباري دولة جبلان يمامك جيسة هير دقمة odayaasha dhaqanka oo ugu horeeyo gudoomiyaha boortida Jubbaland Quraale Jaamac Deer saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha booliska Soomaaliyeed ciidamada Jubbaland ciidanka amisom oo hogaaminaya Gorol Bukeeta ururada bulshada kala duwan ururka hooyooyinka heer gobol iyo heer degmo ururada dhalinyarada gobolka iyo kuwa degmada ardayda dugsiyada kala duwan ee quruxda badan ee naga soo qayb gashay meeshan duqowda dhaqanka ee ku soo halkan culimada bahda saxaafadda iyo inta sheeginba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta munaasabadan aad u ballaaran waxa weeye munaasabadii cali masaarka maamulka heerka degmada iyo heer gobol ee la soo dhisay oo aad maanta isku timaadeen cali masaarkoodii hoolka weynaa degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado munaasabadaas waa munaasabad aad iyo aad u ballaaran waa munaasabad farxadeeda leh waa munaasabad si sharaf leh aad soo gasheen waxa Ilaahay maadiis ah in si nabadgelyo ah oo wanaag ah ay noogu dhacday ay noogu dhamaatay Ilaahay raad waxaan rabnaa inaan idin sheegno annagu haddaan nahay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland waqtigii ballaarnaa ee ka socday oo aan hogaaminayay waxaan Garbaharey joognay muddo 2 bilood ah xalay waxay noo ahayd 6 habeen waad garanaysaan 6 habeen waxaan u joognay waxay ahayd in la helo nabad in la helo nidaam in la helo kala dambeyn in la helo maamulkaas oo noqon doona haddii Ilaahay raado maamul abshir ah oo bulshada u shaqeeyo oo si habboon ugu shaqeyn doona insha Allah ta'ala saasaantiisana waa muuqatayo maamulka maalinta koowaad 29 ahayd markii siyaasiga weyn Imaan Cabdul Kaarshe uu xilku ku wareejiyay gudoomiyaha cusub Nuur Sheekh Maxamed maalinta ayada ahayd markii xilku uu wareejiyay casirkii roobka lagu bilowday habeenkii baan noogu bariyaan malaynaya saasi la shalay ahayd maalinta cali saarka ahayd roobkii lagu bilowday saakin waagu noogu bariyaan malaynaya marka maamulka qeyr inuu leeyahay halkaas iska arkaysan hadduu Ilaahay raado adinkuna waxaan rabnaa inaad u niyeysataan maamulka inuu yahay maamulka rooble maamulka qeyrka maamulka horumarka maamulkii midayn lahaa gobolka Gado 7 degmada gobolka Gado maamulka midayn lahaa maamulka midayn lahaa 7 degmada Gado maamulka midayn lahaa ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Gado wada nool maamulka horseedi lahaa horumar iyo wanaag gobolka Gado isla markaasna isku xiri lahaa dhulka Jubbaland la yiraahdo isku xiri lahaa maanta horta farxad weyn waxa ay ah Garbaharey wax badan baa la yiri Garbaharey waa mucaarad Garbaharey mucaarad maahan waa wadaniyaal wali taariikhda kuma arag inta maanta hoolka isku tumeelay Garbaharey waa wadani Garbaharey waa xuduudda ugu weyn maanta Jubbaland xuduudda ugu weyn maanta waa Garbaharey waa caasimadii labaad ee Jubbaland waa Garbaharey anagu maanta meeshaan war badan meeshaan ma yaalo israac iyo bulsho midowday oo gobolka Gado Garbaharey waxa meeshaan aan war cad ka sheegayaa maamulka la sameeyay oo heer gobol iyo heer degmada haddaan xildhibaanada dowladda Jubbaland oo federaal Jubbaland nahay inaan si toos ah aan u rabno wax qabashadooda heer gobol iyo heer degmada inay u soo cadcadaato oo ay hadda maanta aan marqaati ka nahay inay si midnimo leh oo buuxda ay bulshada reer Garbaharey ay u taageersan tahay xafladina ayaa waxa ay gudaanad u ahayd shirar muddooyinka ugu dambeeyay ka soconaya degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado taasi oo lagu dhameynayay qulqulatooyinka siyaasadeed ka tagna degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado Maxamed Xuseen Kuusow TV-ga Jubbaland degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado